مفاسد مظاهرات كو حكم إذا حاكم في مسلم كها ولا أفلقات ديني ولا قبحي ولا عاي ولا ماغي أو حويان تدكي لو ديري قلنا تدكي نكو بحاي إخواني الكرام حديث تأيارينها مركي مشاهدنا إنه حاكم قارة أو إنه سيقارة إنه تشعلنا هاي أو سيقارة إنه وضع بفايلنا أو ككلا إنه كسر ويسيدنا مجهول من بركاسوها كأبدا كنت أجينا هاي لما نكون يلوي لواتنك مركي لقى عبنا إلهي سبحانه وتعالى عافية المصبين الحكومة ديسي عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله إلهي سبحانه وتعالى إنك يسقى إنه دبداف مدحوينه يني هراي markii dadka qaar ay dooneen mudaharaad inay ku sameeyaan 2022 way duuban tahay khudbadkii nafs al-ahadith ban akhriin maanta madaxweynaheena cirre kursiga uu ku fadhiyana yadana nafs al-ahadith ban akhriin hadith nabiga sallallahu alayhi wa sallam diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala xaafad ma taqaan diinta ilaahay magaalo ma taqaan hadaan aragtini walaal oo marka isaga ay u gasho ahadithta iyo kitaab weyn inta soo qaato ahadithta oranaya hadithana jirta markay u gasho isaga maalinka waxa way reerkiisu aanu xukunka hayn ama cid ku dhow aanu xukunka hayninna uu xadiistii halka uu ku tuurayo afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kitabki ilaahay baad inna qaadanaysan inaad ka tagaysaan laba xadiis baan tilmaami doonaa kamid ah xadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam labadu waxay ku jiraan bukhari iyo muslim xadiiska koobaad xadiiska abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu arbaah nabiga wuxuu kaleey salaatu wasalaam laba shay baa dhici doona xukaan baa iman doona laba arrimood ku dhici doona satakunu athara adduunka inay idinka badsadaan oo xuquuqdiinii ay idin diidaan ayaa dhici doonta xukaamtaas waxa ay sameyn doonaan qodobka labaad wa umuurun tunkiruunaha waxyaalo badan oo aad diidaan bay sameyn doonaan macaasi dulmi xadgudub dad la iska xiro hawlo badan baa dhici doonta ayaa nabigu alayhi salaatu wasalaam wa umuurun tunkiruunaha saxaabadu waxay yiraahdeen yaa rasuulallah fama ta'muruna labada arrimood haday dhacaan maxaa nafraysaa xadiis ibn mas'ud في صحيح البخاري ومسلم نبي يقول عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم حق إذن سارني واجب إذن كوا هبط قدام ما يستريسان وصمعي يمقلك يدعيتانك يوم حويان له كان سمعوان وحويان لغبحين حق يبو أي متيستين إلى هاي إذن كوا واجب قدام ما يستريسان طيب حقنا إننا حقنا وتسألون الله الذي لكم حقي من إذن الله ويديست حقينا يظن إذن كل عيا إلهي ويديست بأن النبي عليه الصلاة والسلام مورا النبي وحوي وتتظاهرون أمامهم إسو صباح النبي مورا عليه الصلاة والسلام وتخرجون عليهم النبي مورا عليه الصلاة والسلام كاسو حديث كوباد حديث كلمات وسيد بن حضير النبي عليه الصلاة والسلام وحكم قرأ النبي يقول ستلقون بعدي أثره وحبلكم بدونتان برصد حكام تاسي أدونك أيدين كبرصدان وحقوق ديني أيدين كدعان وأيدين كقادان وأيدين دلميان حالا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض دركين كل من دون ما النبي يقول عليه الصلاة والسلام حوض كيجات كل من دون ما النبي يقول صلى الله عليه وسلم إسك الصبر أوقات كيست لا بد حديث نقفلا لكن طبعاً أحاديث أي نبي وكهورم عليه الصلاة والسلام وحنا كانت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل كقصة سن حكام يدل يقول النبي يقول كل العليو وأحاديث فربضن وأحاديث سكمل النبي يقول كجاه عليه الصلاة والسلام وهي إلا اسمك له ولا كلام ذنبي لقن عربي أي تقنمه عرب waxay ka koobnaayeen qabiilad waxay ka koobnaayeen qabaa'il iyo wax weeyaan qabiilkii kasta wuxuu lahaa sultaan iyo tusaalahan caaqil iyaga marka kala amar qaadan jiray laakiin inay dhammaan isku wada noqdaan hal taliye ay yeeshaan qodobkaas ma jiri jirin tii marka waxay keentay si dadka loo baro in lagu celceliyo nabiguna uu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam min umuuri al-jaahiliya dhaqamadii gaalada inay kamid tahay in xukaamta lagu baxo in dadka waxa weeyaan مثلا tusaalan xukunka ilaahay u dhibay in kursiga laga rido iyo wixii lamid dhaqamadii gaalada inay tahay nabigu ku celceliyay sallallahu alayhi wasallam idan mafaasid mudaharaadka waxa kamid ah xaakimka muslimka aha wala aflaqaad deenayo oo lagu baxayo oo la caayo oo la maagayo oo waxa weeyaan dadkii lagu dhiiri gelinayo dadku inay ku baxaan إخواني الكرام حديث تأيارينها مركي مشاهدنا إنه حاكم قارة أو إنه سيجارة إنه تشعلنا هاي أو سيجارة إنه وضع بفايلنا أو ككلا إنه كسر ويسيدنا مجهول من بركاسوها كأبدا كنت أجينا هاي لما نكون يلوي لواتنك مركي لقى عبنا إلهي سبحانه وتعالى عافية المصبين الحكومة ديسي عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله إلهي سبحانه وتعالى إنه يسقى إنه دبداف مدحوينه يني هراي markii dadka qaar ay dooneen mudaharaad inay ku sameeyaan 2022 way duuban tahay khudbadkii nafs al-ahadith ban akhriin maanta madaxweynaheena cirre kursiga uu ku fadhiyana yadana nafs al-ahadith ban akhriin xadiis nabiga sallallahu alayhi wa sallam
ما aynu leenahay xaakimkaas inagu la safarnay ama kaasa wax weeyaa reer hebel ama ka baar reer hebel diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala reer ma taqaano sheekho diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala xaafad ma taqaano diinta ilaahay magaalo ma taqaano haddaan aragto nin wadaad oo marka isaga ay u gasho axaadiista iyo kitaab weyn inta soo qaato axaadiista oranaya axaadiistana jirta markay u gasho isaga maalinka waxa weey reerkiisu aanu xukunka hayn ama cid ku dhow aanu xukunka haynin oo axaadiistii halka uu ku tuurayo afatu'minuuna bi ba'd al-kitab wa takfuruuna bi ba'd kitaabka ilaahay baad inna qaadanaysan inaad ka tagaysaan ma maalinka adiga ay ku gasho ama cid dad jeceshahay baad axaadiista ku dabaqaysaa qaarna aad ka tagaysaan waa sidii ka dhacay masar maxaa ka dhacay dawladda al-ikhwan al-muslimiin in badan baa al-ikhwan al-muslimiin xarakadaasi ay ku dadaalayso inay hesho xilka ragga qaarkood xubno kamid ah min xarakati al-ikhwan waxa ay sameyn jireen xukaamtii ka horreeyay tusaalahaan inta Maxamed Mursi rahimahullah xilka aanu qabsan inay ku baxaan xukaamta muslimiinta oo dhan ay dhamaan ay wada gaaleysiyaan cid kasta oo axaadiista samcu wa taa'a iyo maqalka wulaada iyo xukaamta in loo hogaansamo sheegtana waxay u jireen waa dabadhilif waa murji'a waxa weeyaan waa waxa in la caayo maalinku Maxamed Mursi rahmatullahi alayhi kursiga ku fariistayna waxa la soo qaatay kitaabul imaara min sahih muslim oo sahih muslim ku sheeg markii hore miyaanu jirin sahih muslim markii horeba miyaanu kitaab ummadu ay aaminsan tahay oo xadiista nabiga ay ku qorantay miyaanu ahayn waa isku mid sheeg ama Maxamed Mursi aqabsado ama Abdul Fattah Sisi aqabsado cidii qabsata ee muslima ee ummadu waxa weeyaan ay ku heshiiso ama xoog ku qabsata يجب له السمع والطاعة وحواجب أن لمقله له جنسه نبي جينا إن فرع عليه الصلاة والسلام ما لا واحد لما قال استوى قال كل أورانيا تصالحان سلفيينتو تتك وحى يكون دقان إن مربط خفق حكم ككرسي وكفر دائما إنها فاصبروا وفاصبروا أنه ما أوران نبي جينا عليه الصلاة والسلام وفاصبروا إنه ما أوران نبي جينا إن فرع عليه الصلاة والسلام إخواني وحيالها النوع عاصة إنه كون تونو إلهنا شرعي سينوه جان سنة أي واجب إنه هؤلاء إن يصير إنه أن يشعلنا مرة بين يسكر عنا مع شيخه تاني ودين الله سبحانه وتعالى هذه مرة بوجه آد سما يستوى مالين بوجه آد كل قنطه لو واحد سنة سوى حكاها لنا إن إلهي درتي أنا هاي وحكاها لنا إن تهاي وحكا